وبحي كورن بالقحوة سنجبيل كده ما شاء الله وماشي لقربي صبح أنا عبين أنا ما بقي النقط وياسمين لما يعبتها هالشيء إذا الشهلة أشيك أنا جيب قحوة هذه اللي أنكو كبرتين والإيجا ورنا ياسمين حق بس كل قصتين سيفي عن لأنت أنا شقدان ما بقي يسعون لها ما شاء الله إلهي أقول ديغ مالنكي إبرت إلا هذا الشقد هذا وحما يسكبدلين وشقيقان أولي بعرولة هاد daacadnimada ماذا واي وحي وان كنت على هاي سأبايو ولي جاي سنكاتين تقو أنا ما بدينوي ولكن هذا يقول ستوس وما كاتيجيسو قول إذا ما بأسوتش دمر كان العقه هلا لين قول سنة هذا وهي كذا لكن هذه واحد سميسها عاود مركي يقول دون تاس قصب واي إذا بوا أشياء قرمي إما دانا ساك مصير دهبة ما يساكي أنا ده ترتيب هذا صدق ساعة ليس قيمة إلهي إذن عاوي لو قف أول نفسنا بتهينه وحاكل أنا لا شقيسة قبر دلين يراه أول الكيد قبو حوق فرم وشهر حتى أنا قادم الله وأوبح صوتك نقص نقوم واي ياسمين أباي إيه ورنبو أديك بتليفون كسلانت سوى كجان ويسومها كماد بين شيء لكن وان كارها لقلنية ما أنا يورن ساك ماشان أنا أوبح قحوة كعبني ما شاء الله شقدي بنك وكوسو دماتي ما هنا أو حساب ما بنك كفرتين بو ها والله صوتك وقاعد يقشلان هالكي دكتي أبنك وجب قاعدين يا طلبة أصداد أباي ياسمين إلهي ناكو بركة آمين إن حساب تبانك تي أو منك لقى أروس أي ما هنا ياسمين اسمه ربع ياسمين هذا يجحر داقتان كاسحده وارفيسلو ساكو ومحينا أيضا دقوا يرسل كعبان كل هرد ما شرتي يعني كاسحان كري ساعات كلياتنا يجحر داقتا ورداقل حرية ما شرتي توس بانكور قراعدين وتهوياك تدكوت عليه قراعد ساكا هرددا يجمعنا يدابان كوري وروع محي ساكا شيداك كنت كوكا لي شيطاننا مجرى حبيبتي وانيجي صلاة الصبح صوت كذا إن يربان كل علنيا هرددا ما ديست واسقالك ياسمين دكان كي بسيفر سوان كراغي نيو توسو قراعبان كوري waa tagaysaa anna markaa waa inaan baxaa halkee tagaysaa mermer bad rabtaa soo maaha waayahay daa aan seexday daaqadan iga xidh iyo albaabka wariyaaye inta daqla ka maqnaan lahayd iska sii hurd ilaa duurka inta ka imanayo haddunbaad garatay weliba aqalka dushayga iga xidh waar kacban ku dhisay xamay sida hooyo u sheekay kac alaa yala hurday hodanay idaa imika yaasmin iyo jabi gu ridee adna dhibkayga daa aan sariirteeda kaa jiife wariyaahoy walaashaha canaanan haddaad shaqo doon tahay mar horead heli lahayd iga daa calacalkan ii sheeg halkay shaqa taala meel waliba shahaadada labaad ma haysataa bay ku leeyihiin waaba hadday shaqa jirteen yaasmiin markaa maxaad ku eedaynaysaa intii ay kuu qabatay miyaad ka abaaldhacaysa alla abaaldarinida idhagayso walaasha yaasmiin waxaan weydiistay inay iga bixiso kharashka shahaadada labaad ee masterka ee jaamacadda way iga diiday hooyana sidaasay weliba ka dhaadhicisay oo haddii ku siin lahayd waad iga dhoofi lahayd soo maaha sideen kaaga dhoofaa xabiibti maye horta anaaba ogolayn inay yaasmiin lacag dambe ku siiso ee warkayga maqal baan ku yidhi sooniga ku maqlaya horta walaashaayood ku tashata mooyaane adigu xal kale miyaanan la imanahayn cabdiyow ugu dambayntii ma timid gaari kale ayaan dhexda ka soo helay waxaan ku idhi waa tamaandhadii ogow oo khudaartii kalena meeday sow kanay sida maaha way iga dhanta aanu ku weydiiyey gaadhigii kale diiqadii miyuu ka bixi waayey haya u diyaara khudaarta meelaynu ku gurro waxaanoo khudaari mateeniiba haa waa teeniya iga gurbaan ku idhi way badan tahayee beli sugada meelaan u banneeye oo intaa miyaanu dukaanku qaadi karin waxaan la yaabanahay waxan oo khudaara waxaad ku fashay mise waxaad rabtaa si aanad ugu noqonin beerta beryaha qorshe cusub ayaan inoo hayaayo xaajiyo kala saar inta yaro bisil iyo inta kale waxaanoo khudaara maanigaa hayaba meel allaali iyo meelaan kala dhigaba dhib ma laha aqalkaba waynu dhigan karraa maryanay waayahaye bal qorshahan cusubeed wadato ii sheeg cabdiyow macmiil badan baan inoo soo helay waxaan rabaa ganacsiga inaan yaro ballaadhino oo aynu maqaaxyaha cuntada khudaarta u iibgeyno hawl fiican baad qabatay weliba maqaaxyaha waa uga jabnaanaysaa khudaarteennu tay maalin walba suuqa ka soo iibsanayaan haa soo in badan imika suuqa kumaan jirin waan fahansanahay haddayba sidaa tahay soo uma baahnin inaynu jiingadeennan ballaadhinno ilaa khudaartu sidii hore way ka sii badan doontahay haa waa qasab waynu u baahannahay meel aynu dhigno hataa intan imika bannaanka inoo taalla haa waa rune imika intan halkaynu dhignaa meeshan cidhiidhigaa miyaynu ku qasabnaa maya waa intaasoo ay xumaataay guriga ayaynu dhiganaynaa ee keen ninkii maqaaxidii aan la ballamay baa kollay hadhow inaga soo doonanaya cabdeew horta waxaan ku weydiiyey khudaarta ma inaad maqaaxiyaha amaah ku siisaa doonaysaa
ikraan hee adigii cashada waad islaam musteentee hudheelkaad caaway keentay aad buu cajiib u yahay cuntada iyo jawigu maasha allah aad baan uga fiirsaday meeshaan kuu casho keenayo maxaad ka waddaa injineer faaraxow dhowr hudheel baan soo eego kanaa ugu fiicnaa kolkaasaan anna kugu casuumay hedho dookhaagu caadi ma ahan midba midka kale kama dhaco aad baan uga helay kanna iiga warran saafi xaalkaygu waa sidee ma la haysataa magaalada hedho intaan ogahay haa aad bay uga hesho waanay wanaagsan tahay goormaa laga yaabaa inay laabato markii laabana hayso ma casuumi lahayd mid walba si qurux badan hedho casuumad quruxdeedu maxay noqonahaysaa miyaa la sii sheegayaa bay kula tahay wiil yahow waad iga badisay waxaan ku idhi saafi waxoogaa weejooga haysaa weli kama dhammaan fasaxeeda haddaa waa war wanaagsan adigu warka kayn badan qadarin baan kuu hayaa hedho warkaygu waa kaa waa arrin aad u culus taasi waxyaabaha aadkayuu kaa soo dhoweeyey ixtiraamka badan aad siiso ayaa ka kooway karaanay hedha haddii aad og tahay waaba khayr haye maxaa kale quruxdaada marka laga yimaado waxaan aad ula dhacsanaya akhlaaqadaada iyo dabci wanaaggaaga haye ma tidhi hedha adiguba aad baad u akhlaaq wanaagsan tahay guur iyo xaalkiisa ka waran guur waa guur oo farxadu guur faaraxow maxaa ka wanaagsan markayn isguursano qoys aad u qurux badan ayuu noqonayaa guriga aan dhisnaa oo bulshadu ku soo hirato hedha nashqadaha guryaha keliya inaad ka fikirtaa baan moodi jiray show guurna waad ka fikirdhaa teeda kale hoteellada aad dhisto oo dhan aad bay u qurux badan yihiin malaha adigunbaa il kalgacayl ku eegaya karaane oo moodaya inay qurux badan yihiin mise waa kaa dhab xaqiiq aad bay u quruxsan yihiin haddiiba aynu isguursanahayno guriga aad ii dhisaysa sidee buu ekaanahayaa maryanay hee cabdiyow xilligaasoo cabdina ii soo qaylinaya xaggeed joogtay aad ku jirtaa waar hee maxaad maqaariibaha la soo qaylinaysaa waxaa ila socda inankii maqaaxidee kaalay u soo qaaday intii khudaarta ka dhinnay hayaha in yar isug xaaji aan shalmadda soo hagoogtay oo soo dhaqso waa loo taaganye waxaan ku weydiiyey dalabkii hore durba miyuu dhammaaday haade waxaan kuu sheegayay maciyaar baad haysataa maryanay dheesmaan lahayn dalab caynkana ayaad heli doontaan oo sidan u badan waxaan mar horaan soo sahamiyo aan soo ogaado wallee waad shaqaysay xaaji sow inankii maqaaxidu kulama socdo sidaanu ila socon waa ka albaabka taagani inanka u sii tag intaan khudradda u soo qaadayo oo waxaan ku weydiiyey lacagta ma anigaa ka soo qaaday mise adigaa ka soo qaadi cabdiyo miyaynaan ku heshiinin inaan lacagta anigu qaado dee waa caadi haddaan aniguba soo qaado wuxuu ku qaataa miyuu wataa khudradda haa kaariyoon buu wataaye u dhaqsa adugu cabdiyow waanaad saameeye soo dhaqso maqaaxida ayaa layga sugayaay oo horta kaale maryanay aad baratid inanke maryaney walaal sidee tahay yuusuf baa laydhaa barasho wanaagsan yuusufow ma waxaad leedahay maqaaxidan odaygaygan iyo asxaabtiisu ay ka cabbaan shaaha may yuusuf maqaaxi cuntuu leeyahay shaaha ma laha tiisu cabdiyow maxaad adigu jawaabta ula soo booday yuusuf isagaa iska hadli lahaaye iska daa yuusuf ee khudaarta u tiri inaad yuusuf maqaaxidiisa shaaha ka cabtaan ayuunbaan weydiin lahaaye adiga maxaa ku waala maqaaxi iyo shaahuba se waxaan diidaya maha inaad ka hadashay walaal maryan cabdi waa runtii maqaaxi shaaha loo fadhiista maataydu haa inaadan yuusuf khudaarta waad heli doontaa insha allah mar allaale markaan beeraha ka keenaba khudraddiinnan arkaya waa mid daraya aadna waan uga helay lacagta maada iga soo qaadaya sabriya maan u keena waayoy albaabka qolkan joogaaya iga cashadii kaale arag bay ahayd hedha aad baan ula dhacay meel cajiibaa laga geeyey inna caadi may ahayn maya adigba caadi ma tihi waxaa iga kaa muuqataa inaad farax aad ula dhacsantahay ma la dhacsanaan keliya wallaahi baayoy aad baan ugu bogay naawaayo qofkaa xilligan albaabka ka furteen hooyoy anigaa soo galay na inaa wada joogtaan baan moodaye xaggaad xilligan ku maqnayd hooyo caawa casuumad hedha aamus casuumad lahaane naawaynu isu dambaynaynaaye iga seexdaan idhi xilligan hedha hooyo cashaad bananka ula baxda kuma diidahaysee iiwa warxowgii iyo cashadii uu ku geeyey walaalay saafiye sheekadu caawa sidii hore waa ka gedisnayd hedha haygu odhan guur iyo arrimo weyn baan isla gaarnay saafiye walaale waa qof aad u daacad ah oo dabacsan hedha warkaa igu dhul ay qarqarinayna maxaa gaarteen caawa arrintu walaalay guur bay maraysaa iyo kalgacayl siyaada ah hedha waagi hore waxaan saa walaasha jacayl baan la tiray waxaan soo ogaaday inaad fariid caashaqday ilaasho in lagaa dafiyo nasaafiya walaale ammaantiisa ku fogaan yaa ma xilligaadi waa aniga iga hinaasi jidha baa la gaaray sameeye walaalay waa iga nixisay hedha ma iska naxaysaa haddaaba guurkaa dheer sheekadu waa isku dhammaatay walaalay haddaabad hadal roog ku hadlaysaa ma istiri aad baa lagu helay dhammaan hawsha guurkiina si walaalay odagii jaabacna
meesha uga baxo الله وي ولا شيء عقلي ليه والله انت اساكو كجعلاي naayaalahe maxay la caawa la xasaasho qisaane soo kordhay